الحمد لله رب العالمين إلهي بمهله waxaan halkan jecelahay inaan uga mahadceliyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda mudane Sharmaarke Geelle iyo ku-xigeenka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda iyo isuduwayaasha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobollada dalka iyo hawlwadeenada wasaaradda horumarinta caafimaadka ee xarunta gaar ahaan xisaabiyaha wasaaradda iyo agaasimayaasha kale goobta ku sugan mahadnaqa kadib waxaanu joognaa maalin labaad oo shaqo oo aynu shaacinayno hawl shaqo oo ku saabsan shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay'adda shaqaalaha dawladda maalintii hore waxaanu kala diraynay tiimamkii ka kala socday wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo hay'adda shaqaalaha dawladda ee soo kormeerayay adeegyada caafimaad ee dalka ka jira si loogu cadaalad sameeyo dadka shaqaalaha ee goobaha ka howlgala alxamdulillahi rabbil caalamiin maantana waxaanu joognaa maalin labaad oo ah inaynu tala guudna isla eegno shaqada wixii inoo hadhay iyo sidaynu u dhammaystiri karno iyo inaynu hay'adda shaqaalaha dawladda oo mahadsan kala wareegno dadkii inoogu soo baxay madax taabashadii koowaad wareeggii koowaad ee shaqaalaha dawladda lagu kala hufeeyey kuwooda qaranka u shaqeeya iyo kuwooda aan u shaqeyn alxamdulillahi rabbil caalamiin muddada sanadka xoogaaga ay jirtay xukuumaddan uu hogaaminaya madaxweynaha qaranku mudane Muuse Biixi Cabdi nashaad badan iyo dardaraad badan baa ka muuqday hay'adda shaqaalaha dawladda oo runtii lagu dardargelinayay sidii shaqaalaha qaranku ay adeeg hufan ugu gudbin lahaayeen dadka reer Soomaaliland waa dhab wasaaradda horumarinta caafimaadku waa wasaaradda labaad ee ugu shaqaalaha badan dalka waxaa xaqiiqo ahayd in ay wasaaradaha kale dalka sida wasaaradda waxbarashada oo kale ay kaliya isku duruuf ahaayeen waan uga mahad celinaynaa isfahankii wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo dhex maray hay'adda shaqaalaha dawladda ee ahaa in dadkii ka soo baxay markii la madax taabtay shaqaalihii dawladda in duruufaha gaarka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ku sugan tahay lagu saleeyo sida loo buuxinayo dadkaas faraqa inoo soo baxay wuxuu noqday 197 qof run ahaantii waxaan aad iyo aad kalsooni buuxda ku qabnaa in dadka la soo xulay maanta mushaharka loogu sameynayo ay yihiin dadkii mudnaa marka loo eego muddada ay shaqeynayeen iyo goobaha ay ka shaqeynayeen aad iyo aad baan arrinka kalsooni weyn baan ku qabnaa xulashada dadka la soo xulay arrinka labaad waxa weeye waxaa jira oo iyaduna aynu maanta u joognaa oon wax badanna iska weydiinay ilaa saaka shirku ka socday waxay ahayd sidii shaqaalihii wasaaradda horumarinta caafimaadka ugu jiray miisaaniyaddii 2018 loo buuxin lahaa kaalmihii aynu qaran ahaan wasaarad ahaan helnay alxamdulillahi rabbil caalamiin hawsha mahad ballaaran baanu hay'adda shaqaalaha dawladda uga mahad celinaynaa iyo saraakiisha wasaaradda caafimaadka hawsha howlgalay arrinkaasi meel fiican buu marayaa insha allahu sidii gudoomiyaha hay'addu sheegayba waxaa lagu buuxin doonaa merit approach doorkan maynaan qaadan oo waxa weeyaan haddaynu merit approach haddaynu qaadan lahayn waxay noqon lahayd in hay'adda shaqaalaha faraha looga qaado arrinka oo ay suuqa tagto positionadana shaaciso qualificationka dadkana iyadu eegto laakiin duruufihii hore wasaaradda caafimaadka haystay mid la midaba maantana la gartay in shaqaalaha lagu soo buuxiyo oo ah maadaama 3,000 oo qof in ku dhow wasaaradda horumarinta caafimaadka ay joogaan ama ka badan oo ugu shaqeynayay qaranka si tabarucaada muddada qaranku jiray ee 30 sanadooda ku dhow waxa la gartay in lagu buuxiyo kuwooda ugu mudan durationka uu inoo shaqeynayay waa number 1 waxa lagu buuxinayay lagu qaadanayay waxaan rajaynaynaa in insha Allah cidda Ilaahay calaf ku siiyo ay ka soo baxda hawsha la wado markii soo gabagabowdo inay sidaa ku calafsadaan waayo 3,000 qof baa loo baahan yahay wasaaradda horumarinta caafimaadka hadduu qaranku hayo maanta isma bajiitiin lamana hadlayna 3,000 la shaqaalaysiin lahaa laakiin tamarta qaranka oo yar darteed 400 oo qof baa qaranka oo dhan wasaaradda horumarinta caafimaadka la awoodaa in 3,000 qof ee tabarcad ku shaqeynaya laga shaqaalaysiyo halkaa waxa aad culays ku inta uu leeyahay ayaa halkaa ka muuqata fallaahi alxamdu waxaan rajaynaynaa hawshaasi inay naga soo gabagaboobi doonto oo si qurux badan u soo dhammaan doonto insha allahu sanadaha dambena sidaa cadaaladda ay wax u socdaan ayaanu ugu bishaareynayna inta nasiib u yeelan weyday in iyaguna cadaaladdaas oo kale iyadoo loo eegi doono marba dee fursadu marbaa qaran ahaan lacag baynu de heli karnaa waxa laga yaabaa inaynaan diida ilaahayba faraj inoo furo inaynu mar wada qaadano shaqaalaha inoo yaala laakiin haddii de tamartu sidan sii ahaato dee cadaaladda inta ugu yaraynu fulin karnaynu fulinaynaa tamarteenu tahay inaynu sidan u kala mudnaan siino
midana guddoomiyey adiga iyo hay'adda shaqaalaha waa idinka mahad celinaynaa maanta inaad nagu wareejinaysaan 197 qof oo shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka oo mushahar loo samaynayo oo hore dee aan ugu jirin bayroolka dowladda arrinkaa waa idinka mahad celinaynaa qodobka labaad ee lagu dheeraaday sidii duruufaha ka taagan shaqaalaha aad u badan mushahar naga qaato inoo shaqaynaynin sharciyadii hay'adda shaqaalaha dowladdu waa diyaar guddidii anshaxa inoo diyaara shaqaduna godob bay u baahan tahay in lagu godoboobo inta looga dhiirado xafiiska shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka awood buuxda buu u leeyahay cidda aan shaqaysanayn inuu tallaabo ka qaado mushaharkana ka joojiyo guddida anshaxa la fadhiisiyo la xukumo hay'adda shaqaalahana loo diro inagu diidi mayso marka procedurkii saxda ah ee shaqadu dhigayay la maro oo la mariyo marka sabab inuu canaano hay'adda shaqaaluhu ma taalo xeerkii shaqaalaha dowladdana waynu haysanaa inaynu inagu fulino oo shaqaalaheena ku dabaqno baa inooga baahan yahay gobolladuna waa la mid xeerka shaqaalaha dowladdu meel walba u yaallaa arrinkaana canaan dambaynu hay'adda shaqaalaha markay kuwa aynu ka saarno inaga saari waayaan aynu isqabsanno nidhaahno idinkaa cagta noo haya laakiin maanta xeerka shaqaalaha dowladdaynu haysanaa wasiirkii baa jooga wasiir ku-xigeenkii baa jooga dhiijiga iyo guddidaa guddoomiye kaa baa jooga sharciyan arrinkaas waa shaqo inaga inoo tahla weeye waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu